wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee caasimadda Galmudug ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu kamid yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha dawlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxweynaha ku-xigeenka Galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo ay kamid yihiin wasiirro iyo xildhibaano sidoo kale waxa qayb ka ahaa soo dhaweynta boqolaal kamid ah shacabka magaalada madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb oo halkan u soo diyaar garoobay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda maanta waxa halkan soo dhaweynayna madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna hadda ka hor waxa u maleynaa inta la dooran arkay laakiin kabacdi ma arag intii la doortay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama saan dadku soo dhaweynayaan madaxweyne ahmiyo macquul uu yahay maxaa ahayd toole umada waxa u maleynayaa waa aragtan cadarka qof ilaahay uu qeyrsiiyay dadka la mid ma aha saan arkayo kalkii ka horeysay dadka aan soo dhaweynayna iyo saxaabo micni dariska nala ah sidaan oo kale kuma arag cirka marka waxaan dhihi karaa ma sha Allah madaxweynaha boqolkiiba boqol inay shacabkuna ay la shaqeeyaan madaxweynaha aan soo dhaweyn wanaagsan waa socdaal shaqo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ku soo gaaray bartamaha dalka gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb maalmaha soo socda ayuuna halkan ku gudoomin doona shirka iskaashiga madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo diiradda lagu saari doona arrimo ay kamid yihiin ammaanka doorashooyinka lagu soo foodda leh iyo sidoo kale ajendayaal kale oo hortamin u leh hanaqaadka nidaamka dawladnimo iyo hirgelinta adeegyada ay shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkiisa waxa ku welinay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb